cabdi waxa weeyaan taariikhdiisii markaan soo koobo wuxuu ahaa wadani muwaadin daacada buu ahaa muwaadin daacada oo Buuhoodle magac u yeelay oo iskuulka magac u yeelay hadduusan gacanta ku haynin maanta in badan baana lagula dagaalamay anagu iskuulka dhigana rasaasna la dhici jiray iyadoo la doonayay in la bilaqaysto oo dhulka la googoosto hadduusan cabdiweyne hayn garoonka balaaran maanta ma jireen guriga laga dhisan lahaa oo waa la kala iibsan lahaa xabadu saasay nagu hoobineysay kulanti wanaagsan daawadayaal inta badan qofku marka uu geeriyooda ayaa la xasuustaa balse macallin cabdiweyne waa mahad ilaahay inaanu markastaba ka bixin maanka dadkiisa waxaa magaalada muqdisho ku soo dhaweeyay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2019 ilaa maantana garab taagna qaar ka mid ah ardaydii wax ku soo bartay dugsiyadii uu maamulayay oo isugu jira kuwa ka shaqeeya shirkado gaar loo leeyahay iyo waliba qaar u shaqeeya dawladda Soomaaliya waxaa kale oo xusid mudan in ardaydii kale ee ku sugnay daafaha caalamka iyo waliba gudaha dalku ay samaysteen madal loogu magac daray Cabdiweyne Foundation oo ay macallinkooda ku garab istaageen markii ay xaaladda caafimaad la soo diristay waxaan ugu horeyn halkan idinkula wadaagaya dardaarankii uu xilligaasi siiyay macallin Cabdikariim ardaydii Muqdisho ku soo dhaweysay iyo waliba guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed maxaa leedahay dhalinyarada ardayda macallimiinta oo ahayd soo saartay oo magaalada Muqdisho kugu soo dhaweynaya caawa guul iyo farxad bay caawa ay tahay boqolkiiba boqol waa idin salaamaya waa idin soo dhaweynaya caawa waxay runtii mid kabcadi aa u joogo kale ila tahay sida sharafta iyo karaamada leh ilaa xanuunkayga aad u xisteen iyo soo dhaweyseen wixii aan idin barayaan uga faa'iidaystay guul iyo sharaf baan idin hayaa waan idin duceynayaa dalkiina dadkiina ku anfac Allah ka yeelayaan mana ilaa kala taariikh dhammaan ardayda daafaca caalamka iyagana kala maqan caalamka alla inta joogta ee Soomaaliyeed ee aan wax baray iyo inta dhageysanaysa iyo inta ku soo jeedada khayr baan idin rajeynayaa taariikh iyo taqaddum waynaya dalkiina dadkiina inaad ka qayb qaadataan inaad ayayna ka tirsan inaad Soomaalnimada ku dadaashaan inaad qabyaalada ka xoroodaan inaad midnimada sharciga idin rajeynayaa wuxuu ahaa dardaarankii macallin Cabdikariim Maxamed Cilmi oo lagu goran og yahay Cabdiweyne aabihii waxbarashada ee gobolka Cayn waxa uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya habeenkii xalay 15 bisha Ramadaan kuna beegneyd maalin Jimco ah 8 bisha May 2020 haddii aynu jaleecno dhinaca magaalada Buuhoodle macallin Caashe Axmed Cumar Caashe Xarla oo ay isku fasal ahaayeen macallin Cabdiweyne ayaa inala wadaagaysa waayihii iyo waliba halgankii uu deegaanka u soo galay waxaa naga baxay halgamaa wadani daacad ahaa muddo ka soo shaqeynayay Buuhoodle Cabdi Maxamed Cilmi oo ku magac dheer Cabdiweyne haddaan in yaroo taariikhnololiyadkiisa ka warramo marka hore ardaynimo isku soo gaadhnay aanu arday baan isla ahayn waxaan isugu ka wada dhigan jirnay 70-yadii ilaa 72 iyo wixii ka dambeeyay Burco waxaan dhigan jirnay iskuul la yiraahdo Sheekh Yusuf Al-Kaynuun ayaanu ka wada dhigan jirnay aniga isagu waanu ku jirnay marka anigu markaan 7 kay gaadhay ayaan xamar u bedeshay isagoo meeshiisii iskuulka ku dhigtaa ayaan ka tagay alxamdulillah waxaan iskuulkayga waan sii watay xamar baan ku sii dhameeyay dugsiga sare tababarka macallimiintaan galay Buuhoodle waxaa la soo bedelay 1980kii ayaan magaalada anoo laga soo bedelay magaalada Caawduwaaq iyo Dhowsamareeb marka Cabdi ilmu joogin waxa ila joogay maamula Deeq Yuusuf Faarax leedahay baan la joogay maamulahaasi markii uu naga tagay waxaa Burcano looga keenay 1983 Cabdi Maxamed Cilmi Cabdiweyne ayaana loo keenay Cabdiweyne marka ilaa iyo maanta oo uu geeriyooday ilaa iyo inta Buuhoodle ayaan ka wada shaqeynay oo joogay wuxuu ahaa nin daacad buu ahaa nin wuxuu ahaa laab xaaran calal ku sid aan lahayn nin aan calal ku sid lahayn buu ahaa nin daacad buu ahaa nin jecel wadaniyada ayuu ahaa markaan xaqiiqda sheego iskuulkaas isagoo banaan oo uu yahay gabigiisa 3 qol ayuu noo yimid
cabdi inuu ku kordhiyo wax oo sii ballaariyo mooyane wax taaka intaa la eka musiibsan kabana gadan iyadoo dhulkaasi bannaan yahay ayuu xaaji hiirad meesha uu hadda degan yahay ayuu iibsaday boos buu ka iibsaday halka 3 milyan buu booskaas siistay wuu heli karayay inuu iskuulkii dawladeeni maadaama ay burburtay inuu badhna iibsado badhna maxay tahay uu dhisto laakiin wadaniyada ayaa u diiday iskuulka wuu sii kordhiyay dugsi sare muu lahayn markaa secondary buu u yeelay wuxuu yeelay meeshii laabkii buu leeyahay xafiisii u yeelay iskuulkii buu ballaariyay maxay tahay waxyaabo fara badan iskuulka aad indhihiina ku arki doontaan ilaa xadka asaga ayaa gaarsiiyay garaad cabdirasaaq garaad soofi oo ku hadlayay magaca ismada dhaqanka ee deegaanka ayaa isaguna dhankiisa xusay inay taariikhdu xusi doonto macallin cabdiweyne wuxuuna tacsi ka diray geeridiisa runtii waa la xusuusan doonaa oo taariikhda ayaa xusi doonta ammaanadiisii iyo mas-uuliyaddiisii iyo xilkasnimadiisii iyo wadaniyadiisii waa taariikhdu way xusi doontaa insha allahu tacaala waa xubinta la odhan karayo hantidii ay kaga tagtay dawladdii Soomaaliya iyo ilaa hadda sidii u hayay oo ilaa hadda sidii u bannaan oo ilaa hadda wax alaala wixii loo baahdo laga dhisayaa ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala jannadii firdowsa inuu maaragtay ka waraabiyo eheladiina cawil khayr qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka siiyo ilaahay saasaan u weydiinaynaa xubin runtii aad iyo aadaan ugu kalsoonnahay oo u jecelnahay buu ahaa laakiin saacaddiisii baa timid raalli baan ku nahay gobolkoo dhanna runtii waa uga tacsiyeynaynaa xubintiisii meeshuu noogu jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa subxana wa taala cid noo buuxisa inuuna siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin cabdikariinna ilaahay ha u naxariisto guuleed maxamed nuux waa guddoomiyaha gobolka Cayn wuxuu ka mid ahaa ardaydii wax ku soo bartay dugsiyada hoose dhexe sare ee uu maamulayay macallin cabdiweyne ee darwiish iyo samatar baxnaan wuxuuna la wadaagayaa dhankiisa tacsida iyo waliba doorkii macallin cabdiweyne ee deegaanka waxaan leeyahay ilaahay waxa uu bixiyo iyo waxa uu qaataba isaga iska leh sida daraadeed waxaan rabaa inaan tacsida la wadaago nafteedaan oo ka bilaabaya dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskiisii gaar ahaan caruurtiisii iyo xaasaskiisii iyo walaalihii iyo dhammaan gaar ahaan reer cilmi intaa kadib alle ayaa naga jeclaaday cabdikariin maxamed cilmi ilaahay baan uga rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala naxariistiisa waasaca inuu waasiciyo ilaahay baan u weydiinaynaa dembi dhaaf inuu dembi dhaafo su-aalaha qabrigana uu fududeeyo bil rabadaan buu dhintay oo khayrkeeda leh alxamdulilah ilaahay baa ku simay waa la wada dhimanayaa qabriga iyo geeriduna waa la wada horran yahay waqtiyada la dhimanayo baa lagu kala duwan yahay lagu kala ayaan roon yahay bishii naxariista buu dhintay 10 maqfirada iyo dembi dhaafka lagu jiro ilaahay dembi dhaaf baan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inta tacsida haddii aan kaga soo gudbo cabdikariin maxamed cilmi waan wada garanaynaa taariikhda uu ku leeyahay bulshada deegaankeenna reer Caymeed taasi waxay ka dhigan tahay cabdikariin allah u naxariistay maanta wuxuu ka tagay legacy ama dhaxal buu ka tagay muuqda oo dad iyo dunyaba leh alxamdulilah rabbil caalamiin waa ku mahadinaynaa in ilaahay dadkii ka faa'iideystay uu naga dhigay aqoontiisii iyo kartidiisii muddo badan buu wuxuu la soo daalaadhacayay oo ku soo tacab iyo tamarba beelay waxbarashada gobolka Cayn suu meel muuqda uga gaarsiin lahaa waxaa ka faa'iideystay bulsho badan oo dhalinyaro ah oo dunida daafaheeda kala jooga oo gobolada Soomaaliya dhammaantood u dhashay dhinaca kale waxaa geerida xaqa ah ee ku timid macallin cabdiweyne tacsi ka diray qaar ka mid ah ardaydii iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'daa wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma waxa halkan tacsi tiiran yeel la wadaagayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si gaar ah bahdii waxbarashada si gaar ah
deegaanka gobolka Cayn iyo iskuulaadkii iyo ardaydii iyo macaahidii iyo macallimiintii iyo ummadii uu ahaa mas'uulka macallin Cabdikariin Maxamuud Cilmi Cabdiweyne waxaan sidoo kale u tacsi gaar ah u dirayaa caruurtiisii iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo xaasaskiisii iyo idil ahaan guud ahaan bahda waxbarashada ee gobolka Cayn iyo deegaanka Buuhoodle. Assalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan halkan tacsi uga dirayaa Cabdikariin Maxamuud Cilmi Dhoonge isuduwihii waxbarashada gobolka Cayn oo ahaa aabihii waxbarashada gobolka Cayn. waxaan si gaar ah halkan uga tacsiyadeynayaa faamilkiisii iyo xaasaskiisii iyo caruurtiisii ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah ka siiyo gaar ahaan bahda waxbarashada gobolka Cayn. Cabdiweyne in badan buu xula dagaalamay jahliga gaar ahaan gobolka Cayn lamana ilaawi doono waxa uu ahaa role model ayuu ahaa ilaa iyo intii dawladda dhexe burburtay sidoo xiftay hantidii qaranka oo ilaa iminkada oo xalay toole ku geeriyay caasimadda Muqdisho. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waan tacsiinaa aabi waxbarashada gobolka Cayn. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Axmed Faarax Aadan waxaan halkan tacsi uga dirayaa aabihii waxbarashada gobolka Cayn Cabdikariin Maxamuud Cilmi oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis janno inuu ka waraabiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo gobolka oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan in ilaahay ka siiyo samir iyo iimaan. maalin fiican buu dhintay 10kii dhexe wuxuu dhintay Ramadaan marka ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis janno in ilaahay ka waraabiyo samir iyo iimaan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan u tacsiideynaa aabihii waxbarashada gobolka Cayn Cabdikariin Maxamuud Cilmi oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho qiriisana loo soo sheegay. waxaan leenahay ilaahay naxariis janno ha siiyo dhammaan qaraabadii iyo ehelkii iyo gobolka Cayn ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyo Soomaaliya oo dhanba. waxaan leenahay shakhsiga wuxuu ahaa nin nagu weyn aad waan tixgelin jirnay wuxuu ahaa nin halyey ah wuxuu ahaa nin magaalada in badan soo halgamay wuxuu ahaa shaqooyin badan oo kala duwan soo qabtay oo xagga waxbarashada ah. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagana naxariis janno ha geeyo annagana bedel khayr qaba Allahna siiyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waxaan tacsi uga dirinaa aabihii waxbarashada gobolka oo run ahaantii dad badan oo Soomaaliyeed maanta qalbigiisa aysan ka bixin geeridaas. waxaan leenahay Allah ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo. waxaan ogsoonahay Cabdiweyne ilaahay ha u naxariistee meeshuu gobolka kaga jiray sidoo kale waxaan ogsoonahay hantidii dadweynaha sidoo xafiday oo ah shakhsiga kaliya maanta gobolka hantidii dadweynaha xafiday. waxaanu leenahay aabihii waxbarashada gobolka tahay dad badan waxaad mustaqbalkoodii baad noqotay waxaad u iftiimisay inay dad badan maanta mustaqbal dunida daafahooda kala jooga inaad maanta aad hormuud waxbarashada u noqoto aad wax fahansiiso. run ahaantii annaguna waan ku xasuusan doonaa ilaahay ha kuu naxariisto ilaahay qabriga ha kuu nuuriyo ilaahay su'aalaha kuu fududeeyo. insha Allah tacaala waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeedna waxaa inaga tagay haliyey aynu xasuusan doonaa wax badan ilaahay samir iimaan dhammaanteen ha inaga siiyo gaar ahaan faamilkiisii hoose xaaskiisii iyo ciyaalkiisii ilaahay samir iimaan ha ka siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt. waxaan halkan uga tacsideynayaa aabihii waxbarashada gobolka Cayn. waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan hanaga wada siiyo maadaama aanu nahay gobolka Cayn oo dhan. wuxuu ahaa haliyey aad ula soo halgamay waxbarashada gobolka Cayn heerka ay maanta gaarsiisan tahayna gaarsiiyey. xilligiisii waqtigiisii ayuu dhintay. waxaa naga baxay haddaanu nahay gobolka Cayn haliyey aad noogu qaaliya aabihii waxbarashada gobolka Cayn Cabdiweyne. waxaan leeyahay Allah ha u naxariisto jannooyinkiisa mid ka midana ilaahay ha geeyo. dhammaan gobolka Caynna waxaan leeyahay samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo. waxaad ka garanaysaa xilligu dhintay inuu qof wanaagsan oo bulshadu jeclayd oo ahaa ilaahay baa naga jeclaaday. waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto aabihii waxbarashada gobolka Cayn. bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt
uma ilayna turjacuun halkan waxaan tacsi tiraanyalo uga diraynaa dhammaan shacabweynaha reer Caymeed oo ka baxay shakhsiyad qaaliya gudoomiyaha waxbarashada gobolka Cayn Cabdikariin Maxamed Cilmi Cabdiweyne oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho dhammaan shacabweynaha reer Buuhoodle waxaan leenahay Ilaahay samriye iimaan ha inaga siiyo gudoonkii suuliyihii jahliga daarihii shamci tacliinta gobolka Ilaahay janooyinkiisa ku casuumo dhammaan shacabweynaha gobolka ku sugan samriye iimaan ha ka siiyo khaasatan waxaan tacsida la wadaagaynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay gudoomiyuhu waxaan leenahay samriye iimaan Ilaahay ka siiyo qulubta Ilaahay idin qaboojiyo dhammaanteen Ilaahay qalbiyada ha inooga reebo isagana waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay qabriga beeraha jannada kamid uga dhigo Ilaahay uu waasiciyo camalkiisa wanaagsan Ilaahay midigta ka siiyo waan leenahay gudoomiyaha Ilaahay uu naxariisto wuxuu ahaa shakhsiyad wanaag ku suntan dhammaan ka sheegan deegaanka oo wanaag iyo khayr kaga sheegan sumcad kaga sheegan sharaf kaga sheegan intii uu Ilaahayna la hortagaya Ilaahay uu naxariistaan leenahay tacsida wala wadaagaynaa ehelka iyo qaraabada aad baan uga tiraanyoonay geerida ku timi gudoomiyaha waxbarashada dhammaan wuxuu qulubtooda ku jira cid kasta oo qalin buugstul saartay oo deegaanka ku nool ilaa maalinkuu qabtay iyo ilaa maanta uu geeriyooday dhammaan qulubtooda uu ku jira Ilaahay ha u naxariistaan leenahay waa u tacsiideynayna Allah ha u naxariistay Cabdikariin Maxamed Cilmi waxa uu ku dhashay magaalada Buuhoodle taariikhdu markay ahayd 1962 wuxuu ifka uga tagay 2 xaas iyo 8 caruur waxaana maanta 9 bisha May lagu aasay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo markii hore uu xaalad caafimaad u tagay barnaamijka waxa idin soo jeedinaya aniga Axmed Darwiisha waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada igala qayb qaatay muuqaalada Cabdirasaaq iyo Ibraahim tan iyo kulanti dambe nabadgelyo